وعرب إن أضو إجر رالية إن كوشة سؤال محوها يشة سدحات سؤال كوبان أي استهار إيماني ساسا نسوعي مر واحد ويديس سؤاله deegaanada galmudug maxaa looga sameeyay howlgallo marna waxa la weydiisay maxaa ciidanka loo geeyay hadii aan ciidan la geeyay marka yaa howlgalka ka sameeyay sababta aan u soo celiyay xildhibaankayga qaaliga ah horta waa sababtaas marka sida aad la socotaan deegaanada galmudug waxa ka socday muxuu ahaa ii sheegay abaabul waxa ka socday muxuu ahaa ii sheegay aruurin in ciidamo badan lagu tababaray sida aad la socotaan dugsiga harqaboobe waxa ka socda sidaada ayada xanan buuro in sidoo kale ciidan lagu tababarayay waxa sidaas oo kale ciidankii lagu tababarayay beledweyne ee kamid ahaa qaybta 7-aad ayagana loo wareejiyay qaybta 1-aad oo lagu daray ciidanka ku jira harqaboobe ciidanka gorgor ee la geeyana kuwaas ay horta waajibka la wadaagaan taas waa taas marka waxaan isleeyahay wax muxuu ahaa ii sheegay hadda gaar ama issue gaar inay taa uma maleynay waxa ay fulinayaana waa waajib iyo tilmaamaha muxuu ahaa ii sheegay madaxda qaranka oo dadku ka mid yihiin wax ka gaar oo ayagu ay fuli karaan inay jirtaan uma maleynay taas arinta labaad ee heeday howlgallada ka socda shabeellaha hoose ciidanka halka la geeyay ma aysan saameyn anaga muxuu ahaa ii sheegay hogaaminaynay haddana anaga yaa joogna marka ciidamadu sida aad la socotaan howlgalladoodu waxay ku salaysan yihiin marxaladda markaa jirta iyo xaaladda markaas taagan gobolka shabeellaha hoose labada shabeellaba iyo jubbooyinka qaybo kamid ah sida aad la socotaan waa dul carro madow ah waxaa lagu jiraa xilli roobaadkii howlgalladeennii socda waxaa hakad geliyay cimilada lagu jiro xilli roobaadkii lagu jira taas ayaa hakad gelisay ayadana muxuu ahaa sheegay sidoo kale gaabisna ma gelin ee meelo kale oo dalka kamid ah ayay howlgallo ka socdaan ayadana waa u diyaar garoobaynaa cimiladu markay noo saamaxdaan howlgalkaas meeshiisa uu sii socodaya ilaahay idinkiisa ayadoo sidii iyo si ka wanaagsan ah arinta ah muxuu ahaa ii sheegay su'aasha saddexaad oo aheeday deegaanada galmudug maxaa shabaab loogu xiray ilaahay ama maxaa muxuu ahaa ii sheegay howlgallo looga geli ilaahay xildhibaankayga qaaliga ah diyaar garow weeriyaan ku jirnaa marqaatina waxaa ka ah waxaan hadda ka wadno waxaan rajaynaa ilaahay idinkiisa mar dhow marka howlahaas oo dhan ay noo dhamaadaan inay muxuu ahaa ii sheegay ayaduna ay dhici doonto waxaa ugu dambaysay arrin heeday xoogaga waxaan isleeyahay taas wasiirka ka jawaabay wax hadda gaar oo aniga ay qusay ma ahan waxa ku xigay xildhibaan Saabir oo ahaa istaafiyada su'aasha koobaad arrinta istaafiyada waxa dhowr mar lagu soo celceliyay amarka yaa bixiyay amarka horta waxa bixisay xaaladda dhacday amarka bixisay xildhibaanadayda qaaliga ah waxaan ka fikirayno waa amniga dalka waxaan ka fikirayno waa amniga madaxda qaranka ee adunku aad tihiin sharci dejinta ugu sareysay waxaan dhahay ilaaliyaashiini waxaan banaanka u taaganaana waa adinka askariga jidka taagan ee laamiga roga habeen iyo maalin waxa uu taagan yahay waa adinka qalad marka shaqo lagu jiro 100% wax walba sax ay noqonayaan lama dhihi karo way ma karaan daliil way ma kartaa qaladaad laakiin waxa muhiim ah sida lagu sixil hayo la fiiriyo arinta ayada waxa la socotaan iridka Kashmir SYL area SYL waa dhacdadii shanaad ama lixaad oo ka dhacaysa laba dhacdooyinkaas kamiduhu waxay ku dhaceen sida hadda dhacdada ugu dambeysay ay ku dhacday dad isu soo ekeysiyay ciidamada amniga oo lugaynaya oo aakhirkii ay sababtay inay hoteeladii ay gudaha u galaan sidaas daraadeed waxa timiday waa la kala garawaayay su'aal kale oo soo socotay noqon doontaa oo aheeday sababta ay meeshaas u yimideen maxay tahay sababta ay meeshaas u yimideen waxay aheeday ciidamadii istaafiyada ahaa marka ay soo dhaafaan jagboyntiyadii madaxtooyada waxay imaanayaan iridka dhammaan halkaas lagu dajina isma garanayaan colol kala duwan ay ka tirsan yihiin qofka soo dhaxgalana lama garan karo askarigii ilaalada ahaa ee ama jooga tiyaatarka ama jooga ceelgaab ama jooga sayidkana ma jooji kariyo askariga lugaynaya sababtoo ah 300 askari 400 askariya gadaashiisa fadhiisa marka ma istaafiyadii la socdo madaxda qaranka ma shabaaba oo ma midkii cadowga ahaa ee ummadda inuu dhibaateeyo doonaya taas ayaa horta muxuu ahaa ii sheegay keentay iyo baaristii dhacdada oo weli socota in la yiraahdo jagboyntiyada ugu horeeya meelaha madaxtooyada laga soo galaayo hal lagu hakiyo istaafiyada ilaa amar dambe taas ayaa muxuu ahaa ii sheegay amarka horta sidaas uu ku baxyay sidaas oo aha waxaan rabaa marka ayada laba inaan u kala qaado xildhibaanada sharafta leh iyo madaxda muxuu ahaa ii sheegay kala guud ahaan iyo ummadda kale oo Soomaaliyeed oo socotaba qofuna waa qof gudbaayo wadada isticmaalaya oo toos u gudbaaya oo in ka soo gala tiyaatarka sayidka ka baxay ama in ka soo gala tiyaatarka ka gudbaaya ceelgaab qofkaas
مسؤوليته ودويها هاي استاف كيس ما لقى دجينايو غاريغن ولا غدبا amarkaasna waa ka bixina cida staafka laga reebayo waxa waayo qofka iyo kala soo gala tiyaatarka markuu yimaado area SY ama checkpointiyadii madaxtooyada uu ka soo gudbo doonaya dhaxdan inuu staafku ku dajiyo oo gudaha soo galay ama xarunta baarlamaanka soo aadiyo ama xafiisyada kale oo muxuu ay sheegay dawladda ha aadiyo arinta kale oo ayadana sidaas oo kale ayadana aan amarka ka bixinay rijaynayna ayadana inay fusho daliilo way ka imaan karaan waana saxayna waa dadka madaxda ah ama xildhibaan ha noqdo ama mas'uuliyad kale ha haayo gudaha xayndaabka degan ayagana sidaas oo kale istaafyada hore inay la soo gudbaan maadaama guriyahooda gudaha ku yaaliin